Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Muuqaalka maanta insha Allah waxaan kaga hadli doonaa musalsalka Squid Game, musalsalka qabsaday dunida oo dhan. Kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta. Squid Game ama lucbat alxabaar ama haddii af Soomaali ahaan aan ku dhahno ciyaarta farmagoogaha waa musalsal Kuuriyaan ah oo ay leedahay shirkadda Netflix. Maalmo kooban wuxuu ku noqday musalsalka Squid Game musalsalka loogu daawasho badan yahay Netflix oo dhan. Sidoo kalena wuxuu Mareykanka ka noqday musalsalka loogu daawasho badan yahay Mareykanka oo dhan. Waana musalsalkii ugu horreeyay oo Kuuriyaan ah oo sidaas oo dhan u qabsada Mareykanka. Sheekada musalsalku waxay ku dhisan tahay in koox dad isugu imaadaan meel, yacni koox dad meel la isugu keeno. Kooxdaas dadka ahna inta ugu badan ay haystaan duruufo isku mid ah. Mid dayn lagu leeyahay, mid isbiimeynaya, mid dhibaatooyin nolosha ay ka haysato. Dhammaantoodna waxa ay doonayaan ay tahay inay ku guuleystaan lacag dhan 38 milyan oo dollar. Lacagta si loogu guuleysto qof walba waxaa laga rabaa inay ciyaaraan ciyaaro. Ciyaarahaasuna ma aha ciyaaro adag, waa ciyaaro fudfudud, waa ciyaaraha ay carruurta ciyaaraan. Dadkan ku dhow dhowrka boqol oo qof waxaa la isugu keenay hal meel. Sidoo kale meesha waxaa jooga ciidan dhar gadguduudan. Markii ay ciyaareen ciyaartii ugu horreydayba waxaa geeriyooday kala bar dadkii ciyaarta ciyaarayay. Sidaas darteed waxay go'aansadeen oo isku raaceen intii soo hartay ciyaartoyda in ciyaarta la joojiyo, inay ciyaarta joojiyaan. Sidaas darteed waxay sameeyeen mudaharaad, kadibna ciyaarta waa la joojiyey. Waxay ku laabteen guryahooda, laakiin arrinka la yaab kale waxay tahay muddo kadib inay iyaga dhan si rabitaankooda ah oo ciduna aanay soo qasbin ay ciyaarta ugu soo laabteen. Inay ciyaarta dib ugu soo laabteen si ay dib u ciyaaraan, qaar badan oo ka mid ah ay u dhintaan. Hal qofna uu u noqdo qofka ku guuleysta 38 milyan oo dollar. Filimka waxaa laga soo saaray hal season, ilaa hadda waxaa ka soo baxay hal season. Season-kuna wuxuu ka kooban yahay 9 qaybood. 9kaas qayboodna halkii qayb waxay soconaysaa 1 saac. Yacni inaad daawato waxay kaa qaadanee 9 saacadood. Filimkan waxaa la qoray 2009kii. Ninka qoraaga ahna waa nin Kuuriyaan ah oo qoraal Kuuriyaan ah. Wuxuu qoray sheekada uu dhammaystiray 2009kii, laakiin waxaa la sameeyay sanadkii la soo dhaafay ee 2020. Filimka markii ugu horreeyay waxaa loo diyaariyay sheekada inuu noqdo filim caadi ah, filim toos ah oo dhammaystiran. Laakiin maadaama sheekada iyo dhacdooyinka filimka ku jira ay dheeraadeen, wuxuu go'aansaday inuu musalsal u bedelo. Odaga ku jira ciyaarta, odaga ka mid ah dadka ciyaaraya, waa odaga leh fikradda ciyaarta, yacni odaga ciyaarta aasaasay. Sidoo kalena dadka ciidanka ah ee meesha jooga ee dharka gaduudan wata, bahalada wejiga ugu xiran ee wejiga ugu jira waxay tilmaamayaan waxa ay kala yihiin. Horta waxa ku sawiran waa bahaladii PlayStation-ka, calaamadihii PlayStation-ka, game-ka lagu ciyaaro ciyaaraha banooniga waxaas ayaa ugu sawiran wejiga. Kuwa ay ugu sawiran tahay calaamadda o'da ama calaamadda wareegga waa shaqaalaha ciyaarta, dadka dhintay iyo kuwa qaadqaadaya oo shaqaalaha meesha ka ah. Kuwa calaamadda oo sambuuska camal ah oo saddex geeska ah, muthalladka camal ay ugu sawiran tahayna waa ciidanka. Ciidanka ciyaarta ku jira kuwa dadka laynaya iyo waxaas. Halka kuwa calaamadda afar geeska ay wejiga ugu sawiran tahayna ay yihiin madaxda. Musalsalka ilaa haddeer lama qorsheyn, lamana diyaarin qayb labaad oo laga sameeyo. Laakiin markii loo fiiriyo guusha xoogga leh uu gaaray qaybtii koowaad ama season-kii koowaad ee filimka, waxaa laga maarmaan ah dadka ciyaarta leh ama dad kale filimka inay qayb labaad ka sameyn doonaan. Sidoo kalena filimku wuxuu soo bandhigay oo filimka lagu dhex arkay qaabka dhabta ah sida caadiga ah ay u fakaraan marka nolosha caadiga la joogo dadka khimaarka dheela. Dadka khimaarka dheela, dadka isbiimeeya, yacni waa sida dhabta ah ee nolosha dhabta ah marka la joogo ay u fakaraan. Inay isdhahaan waxaa laga yaabaa inaad noqoto qofka guuleysato. Lacagta lagu guuleysanayana ciyaarta dhexdeeda waa lacag badan, 38 milyan oo dollar. Waa lacag badan. Qof walba wuxuu isleeyahay waxaa laga yaabaa inaad adiga guuleysato oo deymihii iska bixido, nolol raaxo leh inaad ku noolaato. Sidaas darteed haniyad jabin oo ha ka bixin. Qofku isma celin karo marka uu qofka qimaarka dheela yahay ama qofka yacni ciyaartaas oo kale ku jira. Haddii nolosha dhabta ah lagu dabaqo oo qimaarkaaba ugu dhow qimaarka aan fiirino, qofku isagoo khasaaraya ayuu ku laalaabanaya isagoo isle waxaa laga yaabaa inaa wax badan ku guuleysato inaad guuleysato. Haddii nolosha dhabta ah lagu dabaqi lahaa, yacni nolosha caadiga haddii sidaas lagu dabaqi lahaa oo ciyaar dhab ah oo noocaas la keeni lahaa, adiga shakhsi ahaan ma ka qayb qaadan lahayd? Ra'yigiina kommentiyada qaybta hoose iigu soo qora. Muuqaalkana sii share gareeya oo asxaabta la wadaaga dadka kale si asxaab badan ay ugu soo xirmaan channelka wax badan uga faa'iidaan. Subscribe-tuna waa muhiim.
like tana ha naga iloobin tan intaan ku kulmi doono muuqaalka xiga waxaan idin leeyahay amaana allah